hooyo Faadimo Xuseen Siciid oo ku nool magaalada Hargeysa waxa ay dadka muxsiniinta ah ee ku nool dhammaan daafaha caalamka ay ka codsanaysaa in loo soo caawiyo gabadheedan yar oo jirta 9 sanadood taasi oo la dhibaneed xanuun kaga dhacay dhanka wadnaha taasi oo dhakhaatiirtu ay sheegeen inaan waxba lagaga qaban karin dalka in dadka muxsiniinta ah ay u soo caawiyaan lambarada shaashada ku qoranna ay ugu soo hagaajiyaan wixii ay ku caawin karayaan haddii aad dhulka wax ku bixiso samada ayaa laga jeclaanayaa. magacaygu waa Faadimo Xuseen Ciise waxaan ahay hooyo danyar oo ku nool magaalada Hargeysa waxaan haystaa ilmo yar oo 9 jira oo inana oo qabta xanuun wadna daloola waxay qabtaa ilmaha yar muddo 9 sanadood bay jirtaa dalka gudihiisa waxba laga qaban kari waayay ma haya awood aan ku geeyo dhakhtar dibadeed waxaan iska ahay qof aad isaga danyara maanta ummadda muslimiinta ama Soomaaliland haato ama Soomaalida kala haato ama muslimiinta oo dhanba maanta waxaan ka codsanayaa dhibaatada 9 sanadood soo haysay in Ilaahay dartii wax igala qabtaan baan insha Allah doonayaa ayaan waraaqihii ugu dambeeyay ee dhakhtarka gargaar aan ka soo qaaday waa kuwan markastaba iyo markanba waxa la yacadeeyay inaan dalka gudihiisa waxba laga qaban kareynin waxaan haystaa 5 caruur ah 5 caruur kaliday baan koriyaa aabahood waan kala tagnay cid igu gargaarto noloshooda ama ilmaha xanuunsanaya dawadiisa iga gargaartay waayeeda ma jirto aan Ilaahay ahayn waxa weeyaan ummadda muslimiinta waxaan ka codsanayaa maanta inay dhibaatada wax igala soo qabtaan 5 caruur aan waxba u hayn ilmaha dawadeeda aan awoodi karin dhakhtar dibadeed u baahan tahay waxa weeyaan Ilaahay dartii ayaan codsanayaa inaad igu soo caawisaan Ilaahay dartii waa kaas insha Allah biidmillaah khayr uma niga rajaynaa Ilaahay idinkiisa.